السلام عليكم أصحابي وعليكم السلام دمانتين markii ku soo dhawaad channelkeena fadlan haddii aan subscribe kareynahay ilaa inaad subscribe kareyso channelka asxaabta kuwii hore noola socday videogan wuxuu ka dhigan yahay way fahmayaan because videogii hore aan analyze kareynay waxaanu ku analyze kareynay laba trade afar trade baynu ku analyze kareynay oo saxmay laba trade na waynu predict kareynay because marka ayada jawaabta ma oolin meesha labadii trade predict way sax iyo khalad wuxuu noqday iyo video iyo labo kale oo predict kareynay ayaan insha Allah videogan ku ekeysiinaya fadlan markale waxaan ku leeyahay haddii aad kamid ah asxaabta hore noola socotay fadlan ha iloobin inaad subscribe kareyso channelka ku informationka hadda dhexda ku soo dhacayna in ogeyn insha Allah waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe kareeyaan channelka haddana soo booqatay ha naga noqonin marka sidaan hore ugu sharaxay trade intaan bilaabay waxaan fiiriyaa Forex Factory وانا fundamental analysis qayb kamida marka fundamental analysis ka ayaan jecelahay inaan iska fiiriyo inta aan waxba bilaabin soo refresh kareysa channelkaaga fiiri waxa jira as you can see يعني bangiga furan baad arki kartaa waqti hadda joogta GB buu furan yahay at the same time maanta waxa jira ayaad arki kartaa khaasatan newska maanta waa kan waad aragtaa date-ka waxa weeyaan Thursday January 16 khamiis 16 January and as you can see waxa jira hadii arabto faakaaga waa barbaari kartaa iyo waxa maanta dhacay waa eegay kartaa sabti yani in adi markaas ayada ogaatid waxa jira iyo waxaas waa mid adiga ku khusaysa waa mid aad sameyn kartid so anyway waxaad sameynaa insha Allah fundamental analysis ka aad mari oo taan mari jiro marka insha Allah marka waxaan ku noqonay marka analysis ki labadii video ee hore si aan marka dambana aan analysis karay videoda cusub so analysis ki videoga hore waxa kamid ah Euro Japan ba kamid ah so Euro Japan waxaanu dhahnay line baynu markii hore halkan soo dhiganay inuu ahayd line ka sababta aan soo dhiganay waxay ahayd balkan halkan buu ku bounce kareynay right dhowr jeer buu halkan ku bounce kareeyay so maxaan iri bartan uu ka soo dhufto ka soo noqdo halkan uu ku bounce kareeyay dhowr jeer uu ka boodbooday marka maxaan line kan asasidi descending line oo yar ayuu kala ayuu aan ila noqday ascending line buu ila ekaaday at the same time حتى سأو في سيمتريك أو كلو يرجع سو واحد نوع واحد سكوا ذاك يا سأنو راح نسميه لاين كان دمان هايست كيسان سو صحري لوست كيسان وحاوي horizontal line بقية يلا دن راح نسميه لاين كان نمبر تاسيدك because كاسنو كسي شكلين كنا لكن كان كسي أول بدنا صوت عم صدق يعني حد رأينا كل صاير طول مريء كوا حد كسر في فيديو سي أنا جوابت مركوش هو كبعدي لاين كان إري the moment وبرتها باس كريو محن دقيقة هذانا لاين كان كله صوت أنا صدق لاين كان واحد مرة على صوتها تبتل صوت تجابي لاين كان أصيب ونسكرية من هاي مركا عيدا محن وقل لي من إلي لكن حتى أنت أنا أبو كل محن سيسمي golden line ما سمي صاحبه وكا golden line بحكا صوري golden line كحن إري golden line كاس ما دام أنت حتى خسارتها golden line كهدو صيب باس كريه فيري هذا واحد وأكيرة تان فيديو يورين كل شيء مرة بأكيرة تان وسميز واحد له ماتشر ما دام يطلع واحد مرة والبوا إن تصير هذه سو محن هاي صوب كودا وين حقيقة so أنا waxaan sameeyay golden line marka sidii so the moment uu golden line charaban dhahay oo baaso waad arkay casaanka line kana ku dhigay casaanka line soo yahay waad arkay inuu sidaya sidii sictaan oo kale ab marka the moment golden line ka taabto inuu kor u kacay so as you can see kor buu kacay wana trade aad u qurux badan cabiraad darajad waxaan ku jirnaa 1 hour frame ka markaan analyze gareeyno 1 hour frame kameena bilaabna khaldamina waxaan ka soo bilaabnay weeks iyo months iyo days iyo ku soo xigsiinay marka 1 hour kii dambeeyaan analyze gareynay buu ahaa dan waxaan dhahay ku trade gareey so ani moment ku bartaas ka bilaabay ayaan trade ka galnay so trade kaas waa 22 bib aad trade u fiican weeyaan mid kale waa up waxa wax sali ku jirin right whatever waxaan sameynay marka moment ku bartaa ku soo dhiftay saqaf kale ayuu noo ahaa right halkaas yani saqaf kale because dhowr jeer bal tijaabiya man ku yiri waa soo dhigtay aan marka waxaan sameeyay muddo halka u galo maxaan dhigtay trendy ani kan marka trendy kan waa maxaan dhigtay marka short position man dhigtay short position ka xaween hadii baan dhahay oo kor u dhaafo line kaas oo halkaas dhaafo yani markaas ayada lot size baan dhigtay because aan khasaari kara laakiin ani waxaan ku talagalay the moment oo line ka kor hoos u soo dhaafo inuu iigu soo dhifto halkaas space kaas markaas aan u galo maxaan dhahay sell marka waka and moment aan arkay in line halka soo dhaaftay confirmation bc aan markaas waxaan sameeyay inaan u soo galay sell and aniga sell ka aan galay kan buu aad qurux badan aad ayuu u fiicnaa sellkaas aad buu wanaagsanaa so muxuu sameeyay golden line ku bounce kareysay golden line ilaa halka ku soo bounce kareey so the moment on golden line ku bounce kareey waxa kartay inaad buy gash laka ani buy makelin because ida muhbin golden line kan inuu line ka haya laakiin ani waxaan arkay line kan baan arkay so marka maxaan dhahay line kan golden line ku soo dhaafi kara halkan buu dhufan kara sidii uu kanba soo dhaafiya intuu ku soo bounce kareey ayuu wuxuu dul dhaqdhaqaaqay marka hadana uu soo bounce kareyn kara sel kale soo gali kara sidaa darteed ani waxaan ku talagalay inaan barta ku jaro laakiin bartaas ma ku jaray so again markii kale halka soo gaaray waxaan sameeyay waa trade ka cusub aan hadda galiyo so trade ka cusub wala aadaamaya trade ka cusub saxaabta trade ka cusub waxa weeyaan waqtiga xaqiiqatan waqtiga waa yaraaday
waqtiga salaadaha wax laga xaday noqotay ilaaha noo dab dhaaf dhamaanteen waxa weeyaan halkaas saad u aragtid waxa weeyaan linekaas aan dhigtay waxaan sameeyay confirmation ahaan baan u dhigtay so the moment uu linekaas confirmation isiya baan idhi host cell baan soo kaliya waa prediction aan wali dhiciya marka kan wali ma dhicin so maxaan sameeyay cell uu soo dhaqaqay laakiin confirmation ka reebay hadda uu isiya moodaa oo pipe ku dhuftay barta laakiin haddii confirmation kale uu isiya hoos u dhaqaaqaya linekaas maxaan markaa ugu talageliyaa down because halkan line engulfing oo kale ayuu sameeyay probably buy wuu aadi karaa oo linkan buy wuu igu noqon karaa kor wuu igu kici karaa laakiin ani si aan taas igu dhicin maxaan sameeyay short line oo dhigtay at the same time waxaan raadinayaa bartaas inuu line kale confirmation inuu waxaan ku talageliyaa inuu down soo dhaqaaqo insha Allah result video damaad ku arki doontaa video aan beerka kale u gudba beerka hadda ku jira waa euro Japan right so ad beerka kale aan u gudbay waxweeyaan USD Japan so USD Japan aan tago yeah here USD Japan marka waxaan sameeyay USD Japan siltiisa wala socotay USD Japan waxaan sameeyay halkaas marka uu ka soo dhaqaaqo ayaan ku dhahay line kan madow ayaan ku sameeyay so golden line kan baad arkaysay yani ana trade-keena bartam ka soo bilowday so maxaan sameeynaa line kan madow aan dhiganay trade-ka dib waa u firin kartaa meelahaas buu marayay marka trade-kan marka waxaan trade-kan haddii line kan madow dhaafo fiiri line kan madow hadduu dhaafo waan dhahay halka iyala markaas ayada buy baan u galayaa linekaas laakiin buy intaan u galin maxaan sii sameeyay line kale oo bartaas ah xankooda golden line kana bartana golden line waxaan dhahay hadduu line kan soo bounce gareeyo ilaa golden line kan soo bounce gareeyo markaas ayada maxaan soo galaa seller because seller qurux badan buu soo noqon karaa halkaas laakiin ani maxaan ku yiri line ka waqtiga u bounce gareeyo so the moment in confirmation hala inuu line ka bounce gareeyo si confirmation ku meelahaas ka dhacay halkan xataa kama dhicin buy qurux badan buu noqday u dhaafaya so the moment confirmation kale buy baan galay adiga arkay line kan madow aan ku tusay at the same time halkaas baynu hadana soo analyze so markaan analyze gareynay waxaan ku jirnay bartan halkan hadana waxaan sameynay trade kan symmetric oo kale wax uu ay kuskan qoday symmetric hadana symmetric bearish right so symmetric bearish ka waxaan sameynay uu ku soo dhex noqnoqday and still wax jawaab ma hayno because symmetric bearish ka waa la qeynaa bearish buu u dhaqaaqaa sida caadiga ah laakiin waxaan wax la hubo ma lahan cid ku dhigi karto ma jirto sida uu isbedeli kara so adiga waa inaad mar walba in case lacagtaada aan wax aan ku invest karaynin marka waxaan sameeyay ani like waxaan hadduu halkaas soo jiro then from there inaan kaga soo dhufto sell baa halka ku soo dhacay again line kan color kan oo aan I don't know cagaarka u eg halkan hadduu ku dhufto uusan hoos u soo dhaafin fiiri maxaan ku yiri hadduu hoos u soo dhaafo inuu down aadayo hadduusan bartan line ka dhaafinna markaas sida inaan tariiq qurux badan gelino tariiq qurux badan buu noqday as you can see ilaa bartaas calaamadaas waan ku siiyay ilaa bartaas laakiin aan ilaa bartaa ma calaamadin but trade buyer oo qurux badan inuu geliyo ayuu eegado selkan uu ku dhex jira so whatever waxa weeyaan and still kaas successful ku dhamaan still waxa noo dhiman mid aan analyze kareynayno sababta euro Japan isagoo ku soo analyze kareeya prediction kan waa ku sheegay san u maleynayay euro Japan waa ku soo sheegay USD Japan baan hadda ku jirnaa right so hadda waxaan gulayo euro New Zealand man ku tusay euro New Zealand isna waa ka aan hadda analyze gareeyay analyze kan fadlan basic waxa waa inta badan trendiga iyo maxaan dhahay at the same time waxa qaabka uu socda frame ka adoo ka soo fiirinay trendiga iyo adoo iyaga maxaan dhahay line-kii ku tusay maxaan dhahay meelaha aad ka geliso so anyway New Zealand san u trade ka san oo analyze gareeyay asaga insha Allah ku dul maro New Zealand waxaan analyze gareeyay laba line baan halka dhigtay labada line halka u dhigtay xawiyaan laba line oo itusay labada line waxaan dhahay barta uu ka ahaa line kan lower maxaan ka dhahay lower iyo low so as you can see line kan trendiga aan u arkay wuxuu ahaa trend hoos u soo socda because inta badan line-nada trend qurux badan ma sameeyaan si hadda trendiga uu laaqlaaqan yahay right inta badan yani hadda saqaf halkan soo soo dhigatid waxaan ka wadaa dhigatid floor iyo maxaan ka wadaa square halka soo dhigatid si aan square ku dhigo one moment intaynu ka bixin videoga saad u aragtid waxaan ka hadlayo so the moment aan halkan aan dhigo box maxaa arkaysaa inuu boxkan ku dhex noqonayo si uu ku soo dhuftay uu ka soo noqday uu ku soo dhuftay uu ka soo noqday right see haddana right so at the same time horta New Zealand inta badan waxaan ka wadaa beariska wax saqafka sameeyo kale waxa u badan bahalkii GBP bearka ay ku jiraan ma u badan anigana khaasatan waxaan u soo jeclaa GBP Japan because kaas waa bear inta badan ama range bus kana laga sida saqafka ku noqon ama down trend iyo up trend uu noqon so kan down trend weeyaan markan down trend muxuu ku yahay inaan ku cadeeyo wuxuu sameeyay up high buu sameeyay high-ga muxuu sameeyay low buu ku soo xigsaday so moment-a uu low ku sameeyay up buu galay laakiin upkaas trendiga uu galay bullish buu galay bullish intuu galay bullishkaas waa maxay
lower waa high low high hore ka hooseeya low high yani lower high. then again muxuu sameeyay low kalu sameeyay lowgii hoose ka hooseeya oo macnihiisa lower waa inuu dhihi karnaa lower buu sameeyay. then muxuu sameeyay high kale oo kii ka hooseeya muxuu sameeyay high maxaan ku sameeyay lower high buu sameeyay again lower high yani low high hore ka hooseeya right. so maxaan sameeyay line baan halkaa dhigtay marka trendigu halkaas buu mariyay line ka dhigtay buu mariyay markaas iyada ana ma garanayno yani hadduu dooni ranjiga muska noqon kare sida waxaan ka wadaa bahalkan oo kale iska noqonaya boxka oo kale ayuu noqon kare sidaa darteed ma garanayno. ana marka maxaan sameeyay line-kan dhowr jeerna waa lasoo tijaabiyay as you can see hadda dib u fiirisid dhowr jeer waa lasoo tijaabiyay mar engulfing ahaan buu kusoo dhaqaaqay si aad engulfing waxaan ka wadaa engulfing sax ma noqonayo laakiin hadda kan oo kale as you can see engulfing weeyaan uu kusoo noqday uptrend right there and then marka uu line-kan maskarin uu kusoo bounce gareeyay dhowr jeer and as you can see here dhowr jeer buu kasoo bounce gareeyay ad marka qaacidooyinka aad isticmaasho adigu eegaya meelaha dhowr jeer karaada support and resistance meel uu ku dhuftay so ana support and resistance meeshan kusoo dhuftay ayaan ka fiirinaya maxaa dhahay marka support and resistance momentiga uu dhaafo cadayna uu isii fiir dib uu noqon karaya hal line bas uma baahni cadayna uu isii that moment waxaan u gelayaa sell. so ana maxaan sameeyay waa kana the moment uu line-kan fiir line-kan aan calaamada kugu tusayo the moment uu line-kan uu sell isoo sameeyo uu line-kan confirmation isiyo maxaan soo gelaya waan ku yiri down baan u gelaya. so maxaan dhigtay ani saacad alarmigaas baan dhigtay alarmigaasna wuu xasuusiyay oo alarm waa dhigi kartaa so how you alarm aad u dhigan yani line-ka aad ku dul dhufo then alarm baad aragtaa alarm ku dul dhufo kabacdi buux yani cross down ana cross down ba igu yaala waa aragtaa markuu cross down kareeyo waxaan ku qoray meesha inuu markuu cross down kareeyo horizontal line-ka waliba one per close marka uu sameeyo inaad marka ay sheegto because marka waxaan u geliyaa down trend adi marka waad u buuxsan kartaa trendigaaga marka ani safe baan soo dhahay. so as you can see line-ka uu soo dhaafay sell qurux badan uu noqday kana waa predicting aad u fiican laakiin predicting waxaan ku raacin karnaa predicting line-kan inuu u badan yahay inuu low ku dhamaado oo high cusub bilaabo trend up inuu bilaabo. so maxaa trend up inuu bilaabo aad ugu malaynaysaa because dhowr jeer buu low soo sameeyay fiiri low buu sameeyay low buu sameeyay low kale uu sameyn karaa oo up amar uu aadi karaa laakiin probably meelahan oo kale inuu ka dhaqaaqo trend kale oo ah trend up as you can see meelahan dhowr jeer buu ka soo noqnoqday halkaas mar buu low gaaray meeshaas mar buu low gaaray though bartaas uu ka soo noqon karaa probably meelahaas oo kale because support and resistance adiga fiiri san anaga video marka aan la screen aan ku raacin mar waxa weeyaan marka line dhigay inuu support and resistance double time taabto because once uu ku dhufto waxa ka sii wanaagsan double time haddii aad multiple time heshana waxa ka sii wanaagsan because waxaan though after all waxan waa prediction ya so adi predicting aad sameynayso yani haddii aad ku predict karaynayso shaygaas kala caawitaan awood ku siinay inuu predicting u dhawaado xaqiiqada because wax xaqiiqa ah meesha ma yaalo markaas ayada waa mid ku dhibaranaysa trade-ka oo 100% successful noqdo ku hagaaga yani wasan waxaagu nasiib noqon gambling inuu noqonin oo kale anyway ani marka trade-kan alxamdulillah uu shaqeeyay laakiin probably meelahaas oo kale inuu ka noqdo ay rajaynayna oo uptrend uu sameeyo so the moment uu uptrend sameeyo ayaan insha Allah asaga fiiqaynayna. so insha Allah hadda waxaad u haysataa videoga dambe resultigiisa ku arki doona New Zealandiga iyo insha Allah Euro Japan oo hore idin ku sheegay labadii hore prediction-ka sida noqdeen waad aragtay insha Allah midaan ku wadayna ilaa aan hubsano san hore idin ku sheegay ani macallin weey kala waxaan arday wada oo asaga buuxiisan danihiisan yani waxaan ka wada analysis-kiisa wada lana raba inaad adiga kala analysis garisid dad ku dhaanto hadii kalena inaad taageeraha ku maxana caawisid hadii kalena adiga wax waad soo baran kartaa iyo waxaas trading meel class waa soo qaadan kartaa laakiin waxa ugu muhiimsan waa practice kale isla practice karayna. so adiga fadlan la shirka comment-gaaga soo qor waxa aad u aragto predicting-gigan hatta wuxuu noqon doona insha Allah kii hore Euro Japan wuxuu noqon doona predicting-giisa nala soo eeg insha Allah kabacdina maxaan dhahaa predicting video-ga dambe in jawaabtiisa ku aragno markan waxaan leeyahay fadlan haddii aad channel subscribe karin ha iloobin inaad subscribe channel-keena mar walba insha Allah waa in sugnaa video-ga inta ku gaarin insha Allah. Assalaamu calaykum dhamaantood.